السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walalayaal meel kastood ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa waqti waa idin wacnaado sidii caadada inoo ahayd muuqaal cusub ayaan idinla wadaagayaa maxaad ka taqaanin walaalayaal dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ku habsaday shacabka beesha ciise waqtiyaday bilaameen iyo ugaasadii noolaa see taariikhdu sheegayso walaalayaal 1885kii waa waqtigii qaaradda Afrika ee reer galbeedku qaybtameen sida pizzaga u qaybtameen geeska Afrikana kama badbaadin geyga Soomaaliyeedna kama badbaadin gaar ahaan beesha ciise deegaankeeduna kama badbaadin waxa dhacday 1885kii in beesha ciise dhulka ay lahayd caradeedii in saddex loo kala qaybiyo in Ethiopia la raaciyo in Djibouti in Soomaaliya waqtiga waxaan noolaa ugaaskii 14aad ugaas Roble Faarax Allahu naxariistay ugaas sumcad weyn leh buu ahaa oo waxa lagu tilmaamaa inuu ilaa 40,000 iyo wax ka badan oo ciidamo u haystay oo ciidamo inuu haystay oo u shaqeynayay isaga oo diyaar u ahaa meesha u diraba inay u kacaan dagaal badanna way soo galeen si kastaba ahaatee markii xuduudada la sameeyay waxay ku noqotay wax weyn shacabka beesha ciise oo dhulka inta leeg iska deganaa ee ka doobinay oo mar qora la idhuun waa inaad warqada haysataan xuduud baa jirta hadeed lise baasi waa inaad qaadataan waxay ku noqotay qoysas iyo reero inay kala jabaan inay mataqaana kala xanibmaan ee ku adkaatay inay tagaan waxay ku noqotay dhibaato traumatism xanuun ay ka qaadaan shacabka waqtiga noolaa maadaama dadkoogii qaraabadoodii la kala gooyay ugaas Roble Faarax Allahu naxariistay iyo ciidamadiisuba iyagoo aad looga baqay haddana waxba kama qaban taasi waxa la oran karaa waxay aad ugu lug leedahay dhacdooyinka hadda dhacaya iyo xaaladdan aan ku jirno qayb ka mid ah halkii la ka bilaamatay baa la oran karaa waxa kale oo jira isaga kadib ugaas Xasan Xirsi ugaaskii 18aad ugaas Xasan Xirsi Allahu naxariistay isagana waqtigiisii dhacdooyin aad u xanuun badan baa dhacay matalan gandaha waqtigii la baabiyay waxay ahayd 1950kii waxaana loo baabiyay Hayle Salaasay ku noqdeen caqabad qorshihiisii iyo danihii uu ka lahaa maadaama ciisuha waqtiga noolaa ay haayeen dad isku mid ah oo awood leh oo isku duuban oo haltii dagaal noqotana laga adkaan karin si loo kala jabiyo la rabay ugaas Xasan Xirsi uu kari waayay wuxuu yiraahdaa duceeyanahay go'aanka waxa iska leh 44 ka oday haddaba waxa qorshe la bixiyeen la kala daadiyo ugaas Xasan Xirsi oo nool baa la kala daadiyay waxna ka muuqaban lagamana hadalo lama soo celin sheekada si waa lagu baabiyay sidina ku maqayn imika waxa la oran karaa dhacdooyinka dhibaatadana haysta waxa ka mid ah waa gandihii la baabiyo wax sixi lahaa wax qaban lahaa ayaa la tartaray ugaas Xasan Xirsina uu iska daayay in yar muddo ka bacdi 1960kii waxa dhacay Hayle Salaasay inuu ay shacaa weeraro oo diyaarado soo kicisto dadka laayo suuq weyn baa ka dhacay waqtigana dadka halka ku sheehdi Ilaahu naxariisto ugaas Xasan Xirsi baa noolaa ku darso waqtigii Magasto Hayle Maryam dagaalkii Ethiopia iyo Soomaaliya waa kii u gaarsaday odayaal badan oo beesha ciise ka soo jeeda isagoo ku eedeynaya inay garab siinayaan Soomaaliya dawladda Soomaaliya taana waxa weey waxba kama qabno waxa Djibouti calankii la qaatay isla waqtigaas 77kii cadaalad dariyo boob iyo biliqo ayaa mataqaan loo geystay ciise halka degnaa ugaaskii waa iska tageen warsee wax la leeyahay la yiri ma waa la sixi doonaay iminkana dawlad halne haloo kaadi hadalkii lagu seexiyay dadka ilaa iminkana cadaalad daradii way socotaa waxa la oran karaa xaaladan cakrana ku jirno waa godobta iyo xumaanta la sameeyay ayaa sabab u ah 15 sanadood kadib geeridii ugaas Xasan Xirsi ugaaska 18aad ayaa ugaas Mustafa Ibrahim ugaaska 19aad la soo doortay sida lagu soo doortay meel ay gandihii dhabta ahaa ee reer walba inuu iska soo dhex saaro 7 oday oo xeer yaqaan oo aqoon leh iyo 2 reerood oo iska soo lagu talagalay iska soo saaraa 8 ayaa waxa la sameeyay gandi faantoosh ah gandi suuqa laga soo qabtay odayo calooshood la ciyaaro saaqadiin aan oran karno oday dhaqameed ku sheegaya oo Ilaahay cadadiisa korkooga taalo oo tuug ah ayaa la soo ururiyay oo 100 ah 44kii gandana
iska soo dhex saara lagu yidhi 12 oday guddida ahaan iska soo dhex saara iyo kuwii kale intii kale boqol ka dhigaysa orda ugaaska soo qabta oo caleema saara ayaa la yidhi waxaana ka dambeeyey kuwii 7 xumaanta sameeyey ee farakutiriska ah ee ilaa haddana haysta ee xumaantaa socota ee ugaasyadana galaaftay ee ka dhigay complice hadda ayay ku leeyihiin ugaas mustafe ayaan cambaareynanaa oon ka maxaan ku ciidamada ka dhiganaa ugaas mustafe waxa lagu qabsadaaba iska yar ugaas mustafe wuxuu ka dhaxlay xaalad cakiran oo dhibaataysan iyo xumaan soo jirtay unbuu goobti waqtigeegii waqti xun ayuu soo baxay si xunna waa lagu soo doortay isagana wuu wataa xumaantiisii laakiin keligii ma waxa dhibaatada geystay raggan hoos fadhiya ee guddida beenta isku sheegaya ee gandaha beenta isku sheegaya ee saaqidiinta ah odayadaasa ka mas-uula haddaba kuwii xumaantan sameeyey ee ka dambeeyey galbeedka city wixii ka dhacay dhibaatooyinka ciisaha waqtiga nool haysta ka dambeeya qorsheeya habeeniya dharaar ee lacag ku cuna ee cadowga shisheeye u soo raaca ayaa maanta dhashoodii qaar ka mid ah ee ugaas mustafe cambaareynayaan eedeynayaan war waxaan leenahay shalay idinkuba dowladda markaad hayseen qabyaaladii quran baad wadina tulkiinba wax siinaysiin adeeradiin markay xadayeen meesha ee tulkood wax siinayeen ee reero qaarkood qadinayeen ee baabiinayeen marka ayaa idinla hadlay oo nifaaleeyey raggii shalay xumaanta samaynayey ilaa imkana xumaanta wada ayaa raba inay iska dhigaan victim iyo dhibane war ummadaha laga xishoodo gaar ahaan 2 reerood ayaa 6 aqalay ciisaha ugu wacan xaaladan ay ku jiraan walina doonay inay sii socoto kolka waxaan leeyahay 4 reerood oo kale ciisaha haddii aad aqli leedihiin aqligiina ha shaqeeyo waxay nii horseedaan dasha 2 reerood ka soo horjeeda ha raacina haddaad ilaahina taqaanaan way ood rabtaan inay reerahan iyo ciise u badbaado waa in laga hadho xumaata shiilka ee ka soo jeeda 2 reerood iyagaana bilaabay iyagaana ugaasyada ka dhiga korompi musuq maasuqa baray marka waxaan leeyahay war laga soo noqdo war xumaan baa leedii qurxiyey oo shaydaan baa idii qurxiyey ka soo noqda waa halaagiinii baad halaagaysiin ilaahayna u toobadkeena dulmigan iyo cadaalad daradan aad wadiinna joojiya xumaan oo laga dheefo meelna wani gaarsiin weyday ugu dambeyn walaalayaal barta taariikhda ama sooyaalka uu deegaankaagu leeyahay taariikhda ay dadkaagu leeyihiin ka hor inta aan la tirtirin ama aan lagaga sheekeen ma itiri baa meesha taala wax isku sheegu ma xumee wax isweydaarsiga xun allahumma hal balaqtu wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu